taliyaha booliska Soomaaliyeed Janaal Bashiir iyo aniga waxaan caawa saqda dhexe aadnay isbitaalada ay ku jiraan bukaankii ku dhaawacmay qaraxii maanta dhacay. Waxaan marka hore u taxsiyeenaynaa dadkii ku dhintay eheladoodii Ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo. Waxa kale oo Ilaahay u baryaynaa aniga generaalka anigoo ku hadlaya dhammaan magaca dawladda Soomaaliyeed in Ilaahay uu caafiyo dadka xanuunsan oo isbitaalada ku jira. Intaas ka sokow waxa dhacay maanta wuxuu ahaa qarax ay geysteen qoladii arxaan laawayaasha ah oo dadka baabi'iya oo dadka dhaawaca oo shacabka xukuumada oo xoolaha shacabka dhibaateeya oo dhaqankoodu uu yahay Soomaaliye inaanay jirin ka soo horjeeda jiritaanka iyo sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed. Alxamdulillah Janaal Bashiir iyo dhammaan ciidamada kale ee Soomaaliyeed waxay mar walba ku howlan yihiin kana shaqeeyaan inay badbaadiyaan dhibaatooyinka kuwaas ay geysanayaan. Meesha iyagu dhibaato ka geystaan annagu dadka Soomaaliyeed ayaan u arxan falnaa. Meesha ay dalka ka dumiyaan dalka ayaan dhisnaa. Meesha ay midnimada ka baabi'iyaan midnimada ayaan raadinaa. Meesha ay hoog u horseedaan barwaaqo ayaan la raadinaa shacabka Soomaaliyeed. waxaan rajaynayaa marka ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto inay nagala shaqeyso dadaalka aan wadno oo looga hortagayo in la soo afjaro kuwan caadaystay inay gumaadaan shacabka Soomaaliyeed. Alxamdulillah ciidamadeenu way dadaaleen bilihii la soo dhaafay. waxaan u ballan qaadayaa shacabka Soomaaliyeed in dadaalka la sii wadi doono la sii dardar geli doono. ugu dambeyntii dadka dhaawacmayna waa loo gargaari doonaa. kuwa magaalada Muqdisho iyo dalka Soomaaliya wax looga qaban karana waxba looga qaban doonaa. kuwa aan looga qaban karinna waan ku caawin doonaa haddii Ilaahay yiraahdo inaan ku soo daaweyno dalka dibadiisa. dawladda Soomaaliyeed marna ma nasanayso inta dalka ay dhibaato ka jirto. inta aan ka adkaanayno kuwa caadaystay inay shacabka gumaadaan. qof walba oo Soomaaliyeed oo dhaawac ama dhib soo gaarana inta amnigu 100% ka noqonayo waxaan ka shaqeyn doonaa inaan u gurmano si walba oo ugu gurman karno ama dalka gudihiisa ama dalka dibadiisa. mar labaad waxaan taxsi u dirayaa dadkii ku geeriyooday eheladoodii. waxa kale oo Ilaahay u baryayaa kuwa ku dhaawacmay maanta Ilaahay inuu si dhaqso caafimaad u siiyo. waa mahadsantiin. Wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.